caafimaadka iyo waxbarashada iyo amniga iyo biyaha iyo wadooyinka ayaa lagu bixiyaa horta waxaan naga dhaadhacsanayn halkaasaan u yara jaal saaraya waxaan naga dhaadhacsanayn haddii maanta xildhibaan la ii doorto ama mayor baan noqdo iskoobka shaqada mayorka iyo mayor ku-xigeenka iyo golaha deegaanku ay qabanayaan ma haysanaba ribood ay noo soo qoreen falilaahi alxamdu laakiin golayaashii deegaankee soo maray intoodu ugu aqoonta fiicnayd in hargeysa mayorka ahayo injineer xuseen maxamuud jiheer laydhaa sanadkii ugu horreeyey uu fiicnaa intii ka dambeeyey laakiin dee dhooqadii soomaalidu uu qoorta wuxuu qoray buug ay ku cadday haddaad inaba hankaaga xildhibaan noqonayso ama mayor baad ku taamayso iskoobka shaqada dowladda hoose waxaa la yidhaahdaa buugga hargeysa municipality statistical abstract waxaa ku qoran dhowr iyo 10 MCH oo hargeysa gudaheeda ah oo shaqa ay uga taalo inay maaliyad ku bixiso dowladda hoose hargeysa burcana waa la mid google-ka haddaad gasho waad ka helaysaa inay MCH-da ama primary health care inay dowladda hoose shaqo u taalo tahay kabka la soo daayay inay geliso buuggaasay ku taalaa waxaa ka mid ah shaqooyinka miyaad isleedahay qofka caawa burca ku dhinta death certificate-kii dowladda hoose intay u goyso ayay revenue ka qabanaysaa waa shaqo u taala taasi waa shaqo u taala qofka dhintiye ka dhasha iyo family-ga capacity-giisu inta uu leeyahay waa shaqo u taala marka waxaan naga dhaadhacsanayn iskoobka shaqadii dowladda hoose ay qabanaysay maxaa ku jira buuggaasaa kaa caawinaya waana reference future-ka insha allah waxaa la yidhaha kuugu celiyay magaciisa hargeysa municipality statistical abstract google-ka gal waad heli functionska dowladda hoose MCH-ku waa ku jira kabkaana waa lagu finance gareeyaa mashaariicda caafimaadka iyo waxbarashada iyo wixii la mid ah assalaamu calaykum cudurdaara baan ka horreysiinaya intaanan hadalo waxaa ninkii mahadama gandhi la odhan jiray wuxuu ahaa hogaamiye adduunka wax ka bedelay dalkiisii wax ka bedelay dadkiisii wax ka bedelay xilli weliba dadku aanay sidan isula jaan qaadi karayn inuu wax ka bedelay erey baan ninkaa ka qoray ashyaada qaldani kama timaado dad qaldan ee waxay ka timaadaa nidaam qaldan nidaam qaldamay bay ka timaadaa shayga qaldane evilkaay wuxuu ka yimaadaa maxay nidaam qaldane shaksi qaldan kama yimaado inaynu cid dhaliilayno ama aynu dowlad gaara dhaliilayno ma aha nidaamka dowladaha nidaamkaynu dhaliilaynaa maaha shaksigana nidaamka ciddii hagaajin lahayd cid fahansani inay hagaajisaabaa muhiima soo ma dhalinyaro idinka idiin taallaa dee wax ka bedelkeedu waxaan usoo noqonayaa su-aashay ina weydiisay kaltuun waxay ina weydiisay maxaa percentageskan iyo waxaan meesha ku qoranay updated maaha maxaa loo bedeli waayo kolley de shaqadaa waxaa lahaa baarlamanka somaliland waxaa lahayd wasaaradda maaliyadda somaliland waxaa lahayd dowladaha hoose ama ururka dowladaha hoose ee somaliland waxaa jira urur arrimahan u qaabilsan oo ay ku midaysan yihiin hay-adaha waaweyni waxaan filayaa ciddii lahayd baa dee ka seexatay nidaamka ciddii lahayd ayaa ka seexatay si kale haddaan uga jawaabana furihiisii koowaad hadda waa la taabtay oo xeerkii ismaamulka degmooyinka hadday baarlamanku wax ka bedeleen wiigan aynu ku jirno si wanaagsanna waxay ugu qeexeen percentageska qaldan sida degmooyinka loogu qaybinayo qodobkaasoo ka maqnaa markii hore xeerkii hore way kusoo dareen sida loogu qaybinayo kabka degmooyinka somaliland taa lafteedu waa update oo hadda waa update garaysanta baan odhan karnaa laakiin waa shaqo habsaantay baan u arkaa laakiin markaad eegto isticmaalka ama qaabka loo shaqaynayay hadda degmo waliba kabkeeda way heshaa inkastoo halkan ay malaa 10 degmo wax ka yar ku xusan yihiin haddana degmo waliba kabkeeda way helaysaa qodobka labaad inankaasi wuxuuna weydiiyey dhalinyarada musharaxiinta maxaa tababar siin kartaan xagga arrimaha bulshada kolley de professor carqala wuu nala joogaa jaamacad shifa university buu joogaa shifa university haddii aad u timaadaan oo la hadashaan mar walba available buu idinku yahay waan malaynaya inuu idiin jawaabo aniga iyo khadarna waxaanu ka mid nahay macallimiinta jaamacadaha burco jaamacadda burco weyn ha noqoto ama jaamacadaha kale private-ka ha noqoto labadaba waxay la tahay haddii ay si gaara isu soo urursadaan dhalinyaradaasina inaanu si mutadawaca ugu siinayno seminaaro iyadana waa ugu suurtagal
qodobka saddexaad waxa weeye ribood la'aanta dowladda hoose maxaa sababay ribood la'aanta dowladda hoose maxaa sababay waxa sababay maaha odhan mayno musuq maasuq odhan mayno waxa weeye waa wax la qarinayo laakiin waxa la yidhaahdaa nin hulaab xumeyn wax qarinaya la moodaa soo maaha anigu waxaan u arkaa un tayada dadka ka shaqaynaya inaan ahayn heer kaa gaadhsiisnayn ee loona baahan yahay tayadii dadka in la hagaajiyo markaasaan kaga baxayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore su-aasha ah aqoon-yahanka iyo kaalinta la xisaabtanka ee xukuumadda horta waxaan jecelahay aqoon-yahanka laftiisa inaynu fahamno who's he dadku dee shan bay u qaybsanaan jireen marka aqoontu marka ay fadhiday ee haabkan aanay ku jirin cid waliba aanay gacanta la gelin shan bay ahaayeen oo dee aqoon-yahanku dadka ugu yar buha baburcoo dhan waxaa laga yaabaa in 5 qof laga tilmaami jiray aqoon-yahan macnaheedu wuxuu ahaan jiray berigii la ladnaa qofka arrin takhasusa oo uu leeyahay aada ugu xeel dheer ninkaasaa la odhan jiray waa aqoon-yahan oo muxuu aqoon-yahan ku yahay waxaasuu ku yahay dadka gobolka soo maray dee way badan yihiin ee ku jiray markii soomaalidu wada joogtay ka muuqday maxamed cumar jiir baa ka mid a macalinkaygii ilaahay xafido hargeysa jooga waxaa ka mid a ma garanaysaa dee lama koobi karo dad la koobi karo dad badan maxamed cumar nin la odhan jiray maxamed cilmi bulaala ka mid a ninkii xisaabta calculustaba soomaalida u bilaabay waa ka mid a inaad maqasheen in kale ma garanayo marka dee dadku way koobnaayeen iminka dadkan marka shahaadooyinka la qaato taytalka aqoon-yahanka qaadanaya dee ma jirin horta taa waa inaad ogaataa everybody is not aqoon-yahan marka laga hadlayo dee maaha taasi waa tahawada ina gelisay wey runtii sare inoo qaatay ismaqalkii iyo isdhegaysigii iyo kala dambeyntii meesha ka saartay iyadoo dhakhtar fadhiya uu nin laga yaabo inuu dhigtay chemistry ama maado kale uu kula murmayo cudurkaasi ee loo daweeya kii siyaasadda soo bartay oo jooga waa laga yaabaa mid ariga ka baaca mushtaraa uu kala doodayo siyaasaddii de markaa de waxaynu kala yeelanay ama kala leenahayba ma jiraan marka aqoon-yahanku wuu sii aragtida in la saxay u baahan tahay tacriif buu leeyahay oo wax qof dee kolleyba la garanayo dadku waxgarad baa jiri jiray iskuulba inaanu dhigan baa laga yaabaa weligii oo uu kaa waxgaradsan yahay tusaale yar baan isiinayaa habeen dhaweydna aan meel ka sheegayo berigii qabyaaladda aadka 9kii sane ee soomaalidu ay rayidka ahayd ee systemka iminka aynu ku daalay dimuqraadiyadda la tijaabiyey 60gii ilaa 69kii ahayd reer waliba uu samaystay 100 xisbi waa nin wax bartay baa dibadda ka soo noqday markaasuu ku yidhi shaqaan doonayaayo odayaashii u dhadhawaabaa ku yidhi shaqaa doonaysa ha kula doonno oo ma idinkaa ila doonaya aqoontaydaan ku doonanaya biochemistry buu ahaa dabeetana odayaashii baa ku yidhi way kula tahay ama way kula tahay ama waa sida dee kulleyba dadku ay kelmadaha u isticmaalaan ninkii waa daalay maxaa taqaanaaba ma jirine yaa taqaanun bahay markuu daalay buu odayaashii kusoo noqday markaasuu ku yidhaahdeen adeer nin baa ku yidhi adeer ninkaagan cagaha dhulkaba aan ku hayn maxaad soo baratay bal wixii aad soo baratay su-aal un iga weydi adeer aniga hal su-aal wixii aad ku maqnayd intaasoo sanadood ee aad soo baratay aniga su-aal iga weydii markaasuu ku yidhi intuu fikirayse wax yaroo fudud odayga weydii marka weel dabka la saaro biyana lagu shubo oo loo daayo biyi way madhaane maxaa ku dhaca kaasuu nacas ma waxaasaa soo baratay dee dabka maana jawaab sax ahayn dee ummaddani waxay lahayd si ay isu dawayso dawadeeday taqaanay si dhibaatooyinkeeda ay u xalisay taqaanay si mushkiladeeda ay u xalisay taqaanay sida ay geedka u tagtay taqaanay shahaadooyinna ma haysan awayaasheen iyaga dadka maamulayay shahaadooyinna ma haysan waxaabaad moodaa in hawada ugu badani ay taasina gelinayso waxaa jiray indheergarad qof indheergarada baa jiray qofkaasi waa indheergarad meel fog buu wax ka arkaa waa far sighted wax soo socduu qiyaasi karaa waxbuu isu geegeyn karaa aniga waxa haddii la sameeyo waxaasaa ka imanaya inaga daaya buu leeyahy ilaa 5 baa dabcan soomaalidii hore ay u qaybsan jirtay dadka
iminka waxay nagaga soo ururtay aqoon-yahan bay nagaga soo ururtay meeshii lasugu tagaba aqoon-yahan calaa kulli xaal waxaan leeyahay start from yourself before you look at others. kuwa kale intaadan eegin imise qof kastoo inaga mid aha isweydiiyey boqolkiiba imise ayaa qabyaaladda kaaga jirta 5%. hadda laba malaa'igna waxbay kaa qoraysaa qalbigaagana ilaahay baa og. adigu isweydiiyo waxaad taageerto waxaa ku taageertay isweydiiy imise boqolkiiba 5 baa kugu jirta, boqolkiiba 100, boqolkiiba 200, boqolkiiba 2,000 maxaa kugu jira? dee adigu qiyaas. then start from yourself. after you change yourself then you can think about the change. waaqaca inaad dejiso markaasaad ka fikir kartaa. laakiin haddii marka dadka aad la joogtana waa waxyaabaha inagayna haysta. dadka marka masraxa la saaran yahay ama platformka ama ummadda lala hadlayana nimcaa laga hadlayaa iyo qabyaalo la dirir. anigu weliba waxaan soo taagnaa meeshii waxa madow lagu aasay berigii kacaanku yidhi qabyaalada naase muqdisho stadium. laakiin dee after 10-15 years waxay naga maqnayd wax 8 sano ku siman 1969. askartu wax kale uma iman waxay u timid uun qabyaaladii 9 sano jirtay unbaa dadku daashadeen, dabeetana dadku way soo dhaweeyeen. askarinimo looma soo dhaweynay 9 sano unbay dadku la dhibtoodeen. markii 7 years markii 7 dagaalku dhacayna qabyaaladii xagga dambe lagala soo baxay oo la isticmaalay. dugsiyada hoose dhexe imika 92 iyo 91 iyo 93 94 qabyaaladu maanta ka xun tahay. sababta ma garanaysaa? dugsiyadii hoose lagu hayaa. berigii hore waxaan imika iskuulada iyo tacliimta iyo systemka qabyaaladu ay gashay dadkuba war uma hayn. maantana waa laga wada hayaa social media dadkii wax bartay oo shahaadadu maxay kordhisay waa halkii hadraawiye. qabyaalad qalin gashay see loo daweynaya bal adigu sheeg. ka reer miyiga waa la garan karaa, waa la daweyn karaa, waa la xalin karaa, laakiin qabyaalad qalin gashay see loo daweynaya? marka waxaan leeyahay dee qof weliba horta isaga ha iska bilaabo intaan wax kale lagu mashquulin. qodobka xiga ee isna muhiimka waxa weeye systemka aynu haysanaa ilaa kacaankii faransiiska isaga un baynu daba joognaa. mid inaga inala eg miynaan samayn karin. horta dowladaha hoose ma u baahanay ma isweydiinaa imisaa kharash inagaga baxa? berigii hore la aasaasay dowladaha hoose ay jireen, dowladihii jiray ee rayidka ah ee 9 sano aan sheegay, kacaankuna wuu nominate garan jiray, nomination baa tacyiin baa hebel dad la soo xusho loo eegay inay dhaqaale haystaan. inagu dad dee faramaran baynu geynaa, dabeetana way naga gurtaan imika maqaarkooda eeg siduu wada casi iyo dee sida ay turkiga iyo adduunyo kale ay wax uga soo. bal idinku eega xaqiiqadii waxyaabahaas u baahan investigation lagu sameeyo. marka dad inaga dhiiggeena jiqa un baynu dooranaa. marka systemka laftiisa dulmi inagu ah qofafkaba intaan laga hadlo. marka ma ka guuri karaa imisay kharash inagu hayaa dowladaha hoose tiradooda isu geeyo. tacyiinkii iyo maayarkii dowladda dhexe ay magacaabaysay baa ka dhow, iyo 10 lagu daro dadkii waaweynaaye la yaqaanay ee wax qabanaya baa ka dhow. inta maalin weliba eeg kharashka doorashada ku baxa eeg imisa inagaga baxa. xisbiyada iminka markaad yara eegto xisbi kasta imise milyan buu doorashada geliyay. maxaynu ku qabsan kari lahayd? dee wax badan maaha. dee markaa systemkan aynu daba joognaa inagu ma lihiine system ina anfaco inagu sar go-aan horta ma ka fikiri kartaan aqoon-yahanow ilaan idinkaa yidhi ma ka fikiri kartaan mise mid lasoo sameeyo un baynu daba taagnaanaa? dee suuragal maaha inaynu isbedelkeena wax inaga ina la eg inaynu leekaan. waxa fiican inaad dhegaysataan dabahuwan. waxa fiican hadraawi dee xanuunka waxa ku riday waxa weeye wax kale maaha. wuxuu maray dariiqii timacade iyo xajaab qalooc iyo raggii la midka ah unbuu maray. ilaahay caafiye. siduu inoola hadlayay ayaa waxaa ku dhacay xeerkiisa isku jiro la yidhaahdo stirtir baa ku dhacay. ummadiina dhegaysan mayso dhegaba male. bal gabayadiisi una isdul taago isbedel ma u baahana. dimuqraadiyad buu soo maray, shuuciyad buu soo maray, waxaad eegtaa markuu sharxayo maraaxilkii uu soo maray. waxaan fadhiyay dhowr iyo 9kii maruu soo noqday qada sharaf loo sameeyo la leeyahay xal maxaad sitaa? markaasuu yidhi adduunyada oo dhan waan soo maro alislaamu huwa alxal. shuuci baan noqday, dimuqraadi baan noqday, maxay baan noqday, waxaasoo dhan waan soo maray. waxa igaga ururtay islaamku inuu xal yahay. dee horta ma isweydiinaa in la tijaabiyo oo calankan tawxiidka ku yaala manhajkii uu lahaa la keeno lagu dhaqo dadka. ma isweydiinaa weliba cibaada ku jirta. taasi waa taa gabagabada. dee horta waa adkaynaya inuu systemka xildhibaanada iyo waxyaabahani way ina mashquuliyeen, doorashooyinkani way ina waaleen.
system aynu uga guro caadi xataa shirarkii beelaha ayaa aniga ila dhahay waan joogay shirkii beelaha 97 ayna cigaal markii dambe lagu doortay waxaana saxaafadda goobjoogan ka ahaa kii boorama joogo goobjoogan ka ahaa kii sheekhay nabadaba lagu guntay goobjoogan ka ahaa saxaafadan ahaa intaasoo dhan oo kaar saxaafadeed baan ku joogo saxaafadahan baan u shaqaynay waxaan garanayaa wixii miisaska hoostooda yaallay qabyaaladani ma jirin markii maxamed ibraahin cigaal lagu soo doortay boorama cid eegtay ma jirin markii loogu cusboonaysay cid eegtay ma jirin maxaa sababay dee waxa shaarica yaallay qof kasta la weydiinayo kii sufahadii baa xataa wax la weydiinaya yaa wax laga weydiinaya ummadda nolosheeda yaa wax laga weydiinaya mid waalan mid qalloocan mid dhuxusha ka shaqeeya mid dadkaas wax laga weydiinaya marka waxaan u baahanay reform nololeed iyo garashaan u baahanay reer galbeedku marka ay dumeen dib bay u fariisteen ay isdileen dabeetana system bay samaysteen maanta iyagii baa kasii cararaya maraykanka systemkan ay ku dhaqmayno reer galbeedkii baa kasii socda oo ka tegey oo ishaysta doorashada ninkan la doortay maraykanka sida la sugaa isku wada ogtiin inana weli waa daba joogta waxaan ku gabagabeynayaa burco marbay midowday marka burco laga hadlayo waxaa la yidhahdaa soomaalidu marbay qabyaalada ka yara xorooday taariikhda marka laga hadlayo waxaana weeye marka 69 70 laga soo bilaabo ilaa 77 intaa ma jirin iyaguna dhinaca kale ka rareen shuuciyad baa haysatay oo yaa tahay lama oran karin ama guri nin reer hebel ma garanaysaa lama oran karin lama soo qaadi karin dhinac ka rarnaan bay ahayd oo qabiilkii bay diideen laakiin qabyaaladina waxbay ka qabteen sidoo kale burco marbay israacday maalinta ay burco israacdo waxay ahayd maalintii maxamed xuseen iyo ilaahay caafiyo odayaasha waaweyn weli ina dhex taagan inagu iyo maxamuud aadan dheri iyo raggii la midkaa intay kaceen ay bridge-kaa dhisatay ee jaamacadda dhisteen ee ay dhisteen halkaa dadka waalwaalan loogu talagalay ee ay wax wada qabsadeen magaaladu wada socotay dadkii dad la mid ah loo baahan yahay kooxo mideeya maaha inaynu shiid kale ku mashquulleen oo mar waliba halkaasaa wax ka soo yeedheen lagu mashquulo maaha ayna mashquuliyaan dadka siyaasadaha ku jira waa in dadkii waxgaradka ahaa iyo dadkii ummaddan u talin kari lahaa intay isu yimaadaan uma baahnin xataa waxyaabahan canshuuree laga hadlo akhiiran waxaa fiican halkan waxaan ku hayaa baxti dhan baan ku hayaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay bacda acuudu billahi min ashaytaan rajiim yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa islaamnimada iyo muslimnimada si dhammaystiran u gala badhna ha qaadanina dee badhna ha ka tegina islaamku canshuurta muxuu ka qabaa ilaa baadi goobto aqoon-yahan dee bal xaggaana eego maxaa islaamku ilaahay subxaana watacaala muxuu ka qabaa canshuurta systemka islaamku uu leeyahay ee haddii dowlad shareecada ku dhaqanta la helo lacagaha loo ururin lahaa maxay tahay islaamku dulmi buu ugu yaqaanaa qofku waxaanu raali ka hayn gurigiisii mushaharkiisii maxaygiisii nabiga calayhi salaatu salaam nin baa u yimid wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi 5 salaadood tuko wuxuu ku yidhi soon wuxuu ku yidhi wuxuu wadaba 5 shay buu sheegay zakada bixi maalkaaga zaka ka bixi waxa maalka lagu leeyahay waa zako canshuur laguma laha sidee bay inoogu filaan lahayd haddii free zone ay dadku ahaan lahaayeen maxaad u malaynaysaa tartanka iyo asxaartu sidee bay u ekaan lahayd bal qiyaas adigu haddii la war ninkii lacag haysta waxaa soo dejinaysa soo deji oo dowladduna maxay ku nooshaa baytulmaal baa jira baytulmaalkana waxaa lagu ururinaya zakawaad dadkuna dowladnimada jirtaa mid adduunye maaha mid ilaahay loogu dhawaanayo wey marka bal horta meelahan hala yaro baadbaado oo idinku badiyaan malaynayo billahi tawfiiq assalaamu calaykum guudmaasayhay middan doonaya inaan idin xusuusiyo horta doodani waa dood ibafuru noqon barnaamijyo badan oo soo socda wiigaga iyo bilaha soo socda insha allah sidoo kale waxaynu ka samayn doonaa warmurtiyeed aynu kaga hadli doono waxyaabihii aynu ka dhaxalay oo soo bixi doona toddobaadka bacdi ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo gacan ka geystay qabsoomidda barnaamijkan sidoo kale howlka nasteexo qaybta decorationka ee sunshine ururka nooleeye ugu dambeyntii inagoo ka faa'iidaysanayna aqoonta khibradda iyo waayo aragnimada saddexdan aqoon-yahan ee halkan inoo fadhiya maxaynu odhan karnaa maxaa xal u noqon kara ama aynu kaga gudbi karnaa ugu dambeyntii maxaa xal u noqon kara ama aynu kaga gudbi karnaa dhibaatadan la xisaabtan la-aanta idinkoo si siman uga jawaabaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waanu soo afmeeran doonaa barnaamijka jawaabaha
meeshaynu ka cabinaynaa waa hogaaminta iyo sharci dejinta. hogaaminta iyo sharci dejintu farteennaasu ku jiraan. farta iyo qabyaaladda haddaynu kala saarno xalka waynu helaynaa. ina yar baa aragteeno Donald Trump xiijisay waa Soomaaliyeed. zero minority bay ka tahay Maraykan. laakiin maxaa lagu doortay? degmaday ka soo baxday waxqabad bay ka samaysay. maxamed cali in baa ku nool wax qabata, Faarax Omar in baa ku nool wax qabato degmadii transformation ku samaysay ama reform ku samaysay. wa ku dooranaa ciduu doonaba ha noqdee xildhibaanka baarlamaanka beriino tagay ama golaha deegaanka reer hebel iyaynaan ku dooranayno muxuu bulshada usoo qabtay, maxaa ka dhiman doonaya inuu qabto. haddii taa la gaadhaha waayo reer Yuruba maalintay kala saareen kiniisadda iyo siyaasadda iyo sayniska ayuunbaa horumarku uu bilaabmay. Soomaalidu meelay degtaba hadday kala saarto qabyaaladda iyo siyaasadda horumarku uu imanaya waa easy. reer Yuruba maalintay kiniisadda iyo siyaasadda iyo sayniska kala saareen ubaa industrial revolutionka u hana qaada. intii ka horreysay iyagoo waabacayeen oo hubiyey. haddaynu kala saarno qabyaaladda iyo siyaasadda horumarku uu imanaya meel walbana waa lagu barwaaqoobay. taasina waxay ku jirtaa farteena. fartaada ka masax reer hebelnimada. maxaad u baahantuu ku qabanaya ku dooro. wasalaamu calaykum waraxmatullahi dadka caqliga la hoo taliya hadda waxay noo talinaysaa sidii profesorku sheegay sufahadii. haddaad eegto dadka musharaxiinta aynu maanta haysano doorta waa dadka intii nolosha ka dhacday, waa intii iyagu tooda u tahli weyday baa doorashada gasha. haddaynu eegno iminka intiina halkan fadhidaa intii aqoon-yahanka ahayde doorashooyinkii saddexdii doorasho ugu dambeeyey hanaqaadka ahayd haddaynu weydiino anigu aan ka mid ahay waxaa laga yaabaa inaanay inta kuyuu galeen istaageen meel dabeetana ay cod ku rideen inay yar tahayba. xalku waxa weeye iyadoo uu taliyo caqligu dadka inta ummadda labeenta u ah iyadoo ay talisaa baa xal noqonaysa. waa marka koowaad sida ay ku talinaysa nidaamka ku imanaysaa waa issue waa arrin gaar. sida ay ku imanaysaa waa arrin gaar. qodobka labaad ee xalka waxa weeye in la helo nidaam dhisan oo inagayna leeg. nidaam dhisan oo inagayna leeg shaar aynu inagu leenahay aynu tolannay. dee qodobka saddexaad ugu dambeeyaana waa maxay? waa qodobka uu inagala hadlay maanta professor ee ah inagoo dad raacna waxa diintu ina farayso. dadka markaynu xitaa u dooranayno inaynu diintooda iyo akhlaaqdooda iyo kriteeriyadooda ku dooranno ayaa muhiima. hadda laakiin maxaynu dooranaa? beri dhaweyd baa degmad magaceeda sheegi maayo degmo ka mida degmooyinkeena eeda ayaa waxaa la yidhi waxaa loo doortay golo deegaan. dadna golihii deegaanka ayaa saa loo eeg 22 nin bay ahaayeen. 22 nin hal nin mooye inta kale waa khamriila leh. khamri cabaan bulshada way isugu markhaati furtay. dee meesha kaasi ka talinaya ama hagaagisa u kala maranaysa adigu. haddaad adigu galbeedka ma jiiranayso ama ay jiraan dee dad ma jiiranaya galbeedka ciddii tagtay baa ka warrami kartaa. haddii dee horumarka loo garanayo daaraha dhaadheer iyo duyuuradaha iyo dayaxaynu tagnay haddii loo garanayo qofkii tegay baa ka warrami karaa waxa yaala galbeedka. dadku dee haddii ka fikiraan un concrete-ka waxyaabaha maadiyaadka haddii ka fikiraan oo qura inay noloshooduna isbedelayso. iminka maalin dhow waxa hubaala beriga hore intaana mobayladana ina soo gelin dadku way sheekaysan jireen oo way kaftami jireen oo marka bas la raaco iyo marka maqaaxi la isugu yimaado iyo marka qof waliba stress ku dili jiray. marka la sheekeysanayo waxa weeye dadku way kaftamayaan way sheekaysanayaan waxyaabaha galbeedka aynu ku dhaanabahay. markii wadaawi baa yidhi baahi aan oolin baa inoo timida markuu ka hadlayay xafladii lagu furay telesom. mobayladu markayna soo galeen iminka iyo smartphoneska idinka arkay waxaad arkaysaa 20 dhalinyaro oo meel wada fadhido midka kale la hadlaya aanu jirin. waxaad arkaysaa guryaha in habeenkii laga soo wada jeedo oo dee mobaylada hoosta lagu wada haysto. marka haddaan laynaga soo gaarino ilaahay albaaba inoo farin waxaaba laga yaabaa beri dhow dad badan oo isla hadlaya in la arko. xaqiiqadii wax galbeedka waxa yaala waxa weeye inanka 18 jir markuu gaadho aabihiina ma yaqaano hooyadiina ma yaqaano. inaga ma inagu dhacda
meelaha loo sameeyey dadku markay gaboobaan lagu ururiyaa loo sameeyey oo ay ku urursan yihiin weliba soomaalida ka shaqaysato oo dhareerka ka saar waxba weliba ma garanaysa dadka qurba jooggaada ayaa shaqooyinka ugu lacagta badan ee la qabto waxa weeye waa guryaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo innagana waa idinkaa arkayo dee waxa weeye waalidkii ilaa iyo kama dambayska waan la joognaa iyaga waaba la dilaa marka dambe marka kuwa joogaa meesha lagu hayo dadka waaweyn ayaa marka qofkii u taag waayaan ee weynaada dhiman waayana maalinta dambe waa in la yidhahdaa warba dee hoos imisuu noogu jooga waxa inaga galaaba badanba waxa inaga galaa badan waa in la dilaa inta tirada isdisha maraykanka qura sanadkii tegay markaad eegto ciiddaasi ka badan tahay tareen isu dhigtay ama meel iska soo tuurtay amaba dhakhaatiirta loo ogolaaday inay wax dilaan horumarka aynu doonayno waa kaamiya sidii aynu u noolayn iyo awoyaasheen siday u noolaayeen ama aabbayaasheenba siday u noolaayeen noloshii ay haysteen caafimaadka qabtay maxaa ka maqnaa dabcan waxbaa ka maqnaa nolosha serviceskeedaa ka maqnaa marka horumarka laftiisa dee inaynu isweydiinayn u baahanay horumarka aynu u baahanay waa noocee kaaynu u baahanay waa noocee waa daare iyo waxaynu u baahanay waxyaabaha maadiyaadka baa laga yaabaa aynu u baahanay taana waa lagu jabayaa aad baa loogu jabaya horumarka maanta kowga ah waa siduu hadraawi sheegayo inta maanku gaajaysan yahay guli waa weli wey ummadani uma baahna daare dhaadheer oo la dhisay waxaa uma baahna waxay u baahan tahay maskaxdeeda in la dhisay u baahan oo iyadoo ay ka xorowdo xanuunadan abuuranay daashada ee qabyaaladu ay ka mid tahay ay ka marka waxaan kusoo ururinaya waxaa aada muhiim u ah waxaa aada muhiim u ah in qof kasta uu isku dayo keli ahaantii horta inuu isbeddel sameeyo oo qabyaaladda iyo waxyaabaha la mida iyo timekaaga iyo waxaad ku bixisaadeen taasi waa kow xalka kama dambaysta waxa weeye ta ilaahay oo shaqaysa xataa maaha caqli oo shaqeeya ma ustaad cabdikariim waa iga raali noqonaya waxa weeye waa ta ilaahay oo shaqaysa xaqiiqadii marka tiisaasi ay shaqayso oo ilaahay addoonnimadiisu ay caddaato dee isagaa albaabada iyo barwaaqada furaya quluubteennana isagaa isu duway dadkana isagaa hagaajinaya laakiin inta meelo kale wax laga soo rarayo iminka macallin qadar saddex arrin buu ka dhawaajiyo taariikhiya kaniisad saynis siyaasad intaa qura research ku samee waay galbeedku ay kaniisadda uga xoroobeen ma laga deliishan karaa kaa inagu inaynu diinta ka xoroono kaniisaduhu maxay u haysteen dadka maxay ku samayn jireen talabaadee taalo waxa weeye maxaa iyaga siyaasadooda maanta ay tahay waxaa jira iminka marka maraykanka laga hadlayo laba xisbi baa jira soo ma labada xisbiya jira xaggee kasoo jeeda mid republic baa la yidhahda midna waxaa la yidhahdaa democratic labada xisbi maxay yihin republica waxaa u taliya niman la yidhaahdo new conservatives maha dad baa le waxan labada xisbi hamoodina waxaad eegtaa ninka la yidhaahdo mori google gareeyo youtube-yadiisa eeg waxaad eegtaa buug yarkii oo la yidhaahdo the big lie yara google garee the big lie nidaamka waa laynaga qariyaa dadka shucuubta caadiga ee maraykankii sida ay u diidan yihiin systemka maraykanka ka jira inagana waxaa ku dayasho inoo ah maraykan dadkiisii hoosena nolosha ay ku nool yihiin ilaahay baa marka arrinka muhiimka waxa weeye uun de waxaan aynu sii daba joogno intaynu ka soo hadhno dadkeenu ay dib u fadhiistaano sidaa uu ustaad cabdikariin sheegay la yidhaahdo horta maxaa inala eg inaga shaarka inala egi muxuu yahay kuuriya system gaaray leedahay chinesku system gaar uu leeyahy dowlad kastaa dhibteeda marka hadda laga sheekeynayo ninkii hindigaa system gaar u lahaa oo isagu garanayo inaga maxaa system aynu leenahay inoo diiday wabillahi tawfiiq guuli daba taala insha allah inteena iyo in lamida unbaa wax bedeli karta waxaan noo rajaynayaa kulamo kuwanoo kala inaynu isku aragno ama kasii wanaagsan aad baad u mahadsantiin dhammaantiin wasaaradda waxbarashada bixisa cashuurta wasaaradda maaliyadda ururiso baana lagu bixiyaa soo ma haddii ay dowladda hoose wax ku darayso waxa weeye inay dhismaha iskuulka wixii kororsiimaa iyagoo qalabkiisa iyo haddii macallimiinta bilaabunnada wasaaradda waxbarashada aan ka gudna ayaa soo gala sida labaad haddii aynu si kala weegnana dhinaca kabka markay noqotona arrimihii bulshada inay mashaariic la yimaadaan dowladaha hoose
horumarinta arrimaha bulshada dabeetana ay ka sameeyeen waxaan xasuustaa sidaa sheegay xog aasaasi ah oo aynu maanta doodeena ku salayno oo ka timid dowladaha hoose ma jirto sababtuna waxa weeye dadkii dowladaha hoose ka shaqaynayay ayaan u bislayn in ay dabaqaan nidaamkii wada xisaabtanka inay dabaqaan aanu bislayn dhalinyarada midka laydinka doonaya inay bedeshaan markaas aada laydinka sugayo qodobka labaad waxa weeye markaynu leenahay dakhliga cashuuraha ka soo gala dowladda adeegyadii bulshada muxuu ka qabanaya waxaan xasuustaa burcada iminka labada laamiye ugu wanaagsan ee ka dhisan mid ka mida dowladdii Soomaaliya ayaa la dhisay oo ka October ereyadeeda mara walaamiga ugu wanaagsan dee lacagteeda inagoo arkaynaba TV-ga la isugu dhiibay soo ma yahayn oo khasnada dowladda dhexeynta laga soo saaray dowladda hoose lagu wareejiyay ya oo dadku public ay tahay ayaa lagu wareejiyay oo ay markeen marka adeegyada haddii ay noqoto xaggii kaabayaasha dhaqaalahana dakhligii dowladda dhexe waxba inaga soo noqdo waxa jira waxa la yiraahdo inaan idinku yara baraarujiyo district development plan waxa uu ka kooban yahay in sanadkiiba la sameeyo qorshe horumarineed ama 5 sano 3 sanaba hal mar la sameeyo strategic planka dowladda hoose iyo mashaariicda u baahan priority in awoodda la saari doono district development planka waxa qayb weyn ka qaata ama qaybta ugu weyn haddii aad aragto uu ku fadhiyaa haddii aad baadhaan wada heli kartaa district development plans ka jira hadda waxaa samaysay hay'adda la yiraahdo UN Habitat baa ka caawisay dhammaan degmooyinka A iyo B ee Somaliland website-yada ku jiraan oo heli kartaa district development planka waxa ugu badan arrimaha bulshada markaad eegto wax qabadka mashaariicda ka muuqata oo mashaariic ka timi hay'adaha caalamiga iyo kuwa qaramada midoobay oo qayb muhiim ah fulintii adeeg waxaan isweydiiyaa marka dowlad hoose dhaqaalaheedii talo ku baxa ku maraa ama ku baxa waxaan ogaaday laba qodob oo kaliya inay inta badan awoodda la saaro waa mushaharooyinka nadaafadda iyo waxa la yiraahdo nadaafadda lafteeda sidii loo baahnaa sidii caraala sheegay loogama faa'iideysto iyo nabadgelyada oo dee haddaynaan hayneen labadaas waxaan maayaa inaan horumar kalaba jireenay aad bay ugu mahadsan yihiin laakiin waxaynu u baahannahay dad u bisil dhalinyaro u bisil fahansan muxuu yahay adeega aynu uga baahanay dowladda hoose maxayse dakhliga ay naga qaadaa oo inoo qabtaa waajibaadka saaran muxuu yahay dowladda hoose waajibaadka saaran waxa weeye dhammaan adeegyada bulshada ee aasaasiga ah ee heer degmo waxbarashadii aasaasiga ahayd caafimaadka aasaasiga ah biyihii waxyaabahaas oo dhan bay mas-uul ka yihiin haddana markaynu eegno mashaariicda ka soo noqonaysa xitaa haddii aynu eegno wadooyinka iminka la sameeyo intooda badan waxa lagu sameeyaa mashaariicda GBLG-ga la yidhaahdo GLBG waa nooc ka mid ah dakhliga dowladda hoose soo gala laakiin aan tooska ahayn boqolkiiba 10 bay ay ku kabtaa dowladda dhexe dowladda hoose kharashkooda marka waxaan u malaynayaa xagga dowladda hoose gaabis ka jira sidii caraala sheegayna inaynu fahanno baa muhiima xoolahoo kale markaynu ka hadlayno xoolahoo kale dhoofkooda markaynu ka hadlayno cashuuraha midaysani dowladda dhexe waa muhiim waayo dowladdu waxa weeye waa hal unit waa hal system inta man jeer la cashuuro ma customiska waxa la yiraahdaa ku mas'uula degmooyinkuna degmada Burco haddii imika neef lagu iibiyo oo xeerkani waajibinaya neefkaas in laga qaado cashuurta 22 cisho la siiyo warqadii transitka hadduu berbera tagay hadduu sheekh tagay iyo hadduu meel kale tagaba laba jeer un bay ku waajibaysaa cashuur degmo kale haddii mar labaad la kala iibsado oo inta Burco laga iibsado neefkeedana sheekh la geeyo dadna sheekh lagu kala iibsado marka way ku waajibaysaa haddii 22kii cisho jid markaa ka dhamaadana way ku waajibaysaa cashuur labaad laakiin si kale kuma waajibayso cashuurtaasi markay tagto dowladda dhexe ayuunbaa cashuurteeda ku harsan tahay dowladda dhexena waa export tax
export iyo importna waxay ka dhacaan xuduudaha meelaha xuduudaha bay ka dhacaan inaynu markaa fahannaabaa muhiima kastamada nidaamka wasaaradda maaliyaddu u dhisan tahay waxa weeye inland revenue oo ah cashuuraha beriga ayaynu inagu naqaanaa iyo kastamada oo dhammaan meelaha xuduudaha ah iyo riboodada ku yaala meel kasta wax laga soo dejin karo ama dal kale alaab ka timi ay ka soo gaari karto dalka ayuunba iyaguna joogaan haddii aynu duba xasuusanno iminka xeerkani xilliga uu sheegayo burca wuxuu ku tilmaamayaa degmooyin kale kastamada burco iyadoo kabka heshay kastamka beer ku ooli jiray xilliga ayaa ahaa kastamkii maanta tukaraq muddo yaalla soo ma maanta tukaraq wuu yaalla laakiin maalintaa wuxuu ahaa kastamka beereed boqolkiiba 10 burca way keeni jirtay marka kastamku wuxuu la guuraa mar walba xadka ama meesha ay alaabi ka soo geli karto dalka sidaa inaynu u fahanaabaa muhiima aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad umahadsan tahay dhammaantiin aad baad iyo su-aalaha idinka dhex guuxaya laba shaqsi ama saddex shaqsi hadba intaynu ka gaadhno aynu isweydiino kadibna aynu su-aasha ugu dambeysa kusoo xidhano barnaamijka inantaasaa ugu horeysa safka koowaad kursiga dhexe fadhida markaa saddex su-aalood baan weydiinaya khabar waxaan u sheegayaa su-aal nafsay weydiisay oo ahaa dowladda dhexe waxay siisaa kabbay dowladda hoose siisaa markaa markuu sharaxayo meelaha kala duwan ay gelisay wuxuu yidhi dowladda waxay ku maamushaa primary health care-ka oo uu ka waday mchada markaa xogogaal ahaan waxaan u sheegayaa dowladda hoose inaanay ku maamulin mchada gacanta waxa ku haysa hay-ado gaara daacaadkaas sidoo kale waxaa jirta mchada biyo isticmaalaan iska daa inay maamusho lacagta wax ka mid ah ay ku maamusheen lacagta biyaha soo gala xataa kama garbaaro qaadato markaa khabarkaasina sheegaya cabdikariim su-aal baan weydiinaya marka la dhiganayo dee socialka meelba qofku doonto waa kaga soo baxay waxaa jira somaliland taxation qayb ka mid a waxaa jira aktiyo kala duwan oo aynaa qoran laakiin dowlado kale laga soo qaatay oo badanaa ka sheekeynaya qofka goorta cashuurta ku waajibisa goortaan ku waajibin ka gudubtaa su-aal waxaan sii tixraacaya kelmad baa jirta aad tiri raidka markaynu akhrisanayna haddaad aragtay percentage baa jira weliba lacagta markaa dadka laga qaadayay qorani waxa weeye laantii tii hore shilinka yacni markaa maxaad abdeed maaha lacagta xataa percentiga marka la eegayo abdeed maaha tana imanka qaadaana maaha wax qoran markaa maxaa hortaagan loo abdeed garan waayey su-aashaasaan isaga weydiinaya profesorkana su-aal baan weydiinaya su-aasha weydiinaya waxaa weeye berigii hore aqoon la-aan baa jirtay bulshada ka jirtay oo aan loo lahayn cashuuraha iyo waxyaalaha noocaas ah iminka waxaa la mudaa in dadkii fahmeenba cashuuraha siyaabaha noocaas ah dhalinyaro ahaan iyo ka aqoon-yahan ahaanba saameyn intee leeg baynu ku yeelan karnaa midda kale waxaa jirta taga soo qurayaana noqon ma naqaano sida dowladda loola xisaabtamo ka dhalinyaro ahaan wixii markaad aqoon u yeelato ina dowladdaada la xisaabtami kartaa markaa sidee dowladda ula xisaabtami karnaa saameyn intee leeg baynu ku yeelan karnaa ayaanu kula xisaabtami karnaa markaa su-aalaha kala duwan baan weydiinaya dhammaantiin aad baad mahadsantahay inanka khamiiska xidhan iyo koodhka safka ugu dambeeya lecturena anfacayo marka saan lectureka ugu soo talagalnay waxaan leeyahay in marka hore ay lecturerku waxa weeyaan dhifan garanayaan ay aadna waxa weeyaan u sharaxayaan kadibna su-aalaha la weydiinayo inkastoo imanka si wanaagsan waxa weeyaan uu u baxay qabaa waxa weeyaan كله وحن كتيرة مليارتا إما كدون سين الشرحضو يلها ديان كانوا حويا ديانين السا استيكر كيا حويا هالكل جيجي على وحها الميربا يجوا يد دار عن قاين يد علمنا الحلال ومدة يدرسين يلا الساعة تايا دلو كدونين عن دياريا شنديهم مشرح نمو وكديو حويا عن ديار رير كي ندم كان قبلية سأدرادين ما دام صدق حلك شربا ay waxweeyaan nidaamka maamulka iyo development-ka ay kulligu leeyihiin sideeday noogu qaban karaan dhalinyaradeeda ee nidaamka doonaysa caawina ka faa'iideysatay inay deebal waxweeyaan training dhammaystiran oo community development ah waxweeyaan weli nidaamka dowladda hoose sideedaa waxweeyaan loo samayn karaa si waxweeyaan looga duwanaado qodob labaad aan ku darayana waxay tahay
oo inaga khaldan haddii golaha deegaanku uu inta badan dee marka runta la sheegay ku salaysan yahay reer sideebaa xildhibaanka marka reer soo doorto uu dee damiirkuba ma siinayo bulsho u shaqeeya in dee reerkii iyo hawlihii dee uu ku mashquulay noqonaysa markaas si reerkii iyo taasina uga baxdo sideebaa dee nidaamkan golaha deegaanka looga duwi karaa in waxa weeyaan ay reer soo doortaan ee ay bulshadu usoo dooran karta si hadhow bulshadu ula xisaabtanto labadaas su'aalood baan kusoo koobaya asalaamu calaykum aad iyo aad baan u salaamayaa aqoon-yahanada maanta iyo hor fadhiya professor caraale iyo cabdikariim iyo macalinkaygii khadar aad baan idiin salaamaya saddexdiinaba sidoo kale waxaan aad u salaamayaa marti sharafta quruxda badan ee halkan madashan isugu timi magacaygu waxa weeye isma jaamac aadan waxa aan backgroundkayga waxbarasho waxa weeye 2 degree baan haystaayo midna midwifery yahay midna lab technician yahay waxaan dhihi karaa waxaan hayaa anigu dhinaca caafimaadka haddii aan usoo gudagalo waxa aan doonayo cid aan ataagayo oo aan dhahayo dee waxay khalad bay leedahay ma jirto laakiin waxaan anigu ra'yi baan bixinayaa ama comment ra'yigaas waxa weeye mar kasta waxaad moodaa bulshadeenu inay yihiin dad ku salaysan dhaliil waxa ay dhaliilaan mar kasta cidda xukunka u haysa ama hadday tahay dowlad hadday tahay guddoomiyeyaal hadday tahay cidda ka saraysa mar kasta dhaliilaan laakiin waxaan dhihi karaa aniga asma ahaan ma la heli karaa dhalinyaro iyagu shaqaynaysa oo intay iyagu ka ballan qaadaan naftooda intay horumariyaan ay horumarin karaan bulshada takale mar kasta waxaa la yidhaahdaa burco waxa weeye way ka dambaysaa magaalooyinka kale way ka dambaysaa baa la yidhaahdaa waxaa la sameeyaa in tayre la gubo waxaa la sameeyaa in shiid la sameeyo waxaa la sameeyaa in social media inta la istaago saxaafadda loo yeedho oo la yidhaahdo war baanu haynaaye kaalay ama waxa naga dhex buuxaya naga qabta laakiin ma la isku dayaa in ay bulshada reer burco intay marun damiir yeeshaan iyagu dhihi karaan waxbaanu bedelnay iyaga oo aamusan oo aan shiitamin oo aan social media cid ka caayin tusi kara caalamka oo dhan inay iyagu dad yihiin oo ay aqoontooda iyo waxbarashadooda iyo cilmiga ay leeyihiin iyo fikirkoodaba iyagu soo bandhigi karaan waxaan dhihi karaa haddii dadkayna laga helo uma baahanayno inaynu dowlad dhaliilno iyo inaynu dadka inaga sarreeya aynu mar kasta nidhaahno way bay wax noogu qaban waayeen waayo qofka bini-aadankaahi markuu naftiisa horumariyo ayuu dadka kalena horumarin karaa waxaan dhahay anigu dhallinyaradoo dhan risaalad baan u sheegayaa risaaladaas oo ah inaad gaarsiisaan marka ugu horeysa dhammaan bulshada oo dhan burco yaa wax u qabanaya sideebad wax ugu qaban karta adigu ka dhalinyaro ahaan adigoo aan sugaynin kursiga ugu sarreeya maalin kasta muuse bixi baa la caayaya waxaa la leeyahay waxba noomu tarin fartayadii baanu eednay fartaada maad eedine adigu maskaxda kugu jirta waxaan leeyahay ka shaqaysii anigoo soo koobaya waxaan ku leeyahay dhalinyarada reer burco ee soo kacayso inagu burco wax ma u qabanaa mise waynu dhaliilo umaynu qabanaa intaas aad baan aqoon-yahanada hortooda soo fadhiya oo ugu horeey professor caraale macalin cabdikariim iyo khadar intaa ka bacdi su-aasheedaan siga gudagelaya professoradu waxay ka dhawaajiyeen in dowladda hoose dowladaha hoose weliba siiba dowladda hoose ee magaalada burco aanay riboodka la wadaagin bulshadeeda su-aasheedu waxay tahay maxaa sababi karaya inaanay bulshada la wadaagin riboodkii ma aqoon daraa ma musuqmaasuqba maxaa sababi karaya hal statement waa raacay la waqtigoo kooban kulla caawa halkan dhalinyara fadhida aqoon-yahanana way farbadan sidoo kale aqoon-yahanana waxay inoo soo jeedinayaan lectureka statementka raaciya waxa weeyaan maanta mushkiladda burco ka taagan aqoon-yahanaduna waxay ka dhawaajiyeen mushkiladda ka taagan inay tahay dowladda hoose waxa wax loo qaban laayay waxqabadku u muuqan laayay inay tahay dowladda hoose mutaxilaadkii dowladda hoose ugu dhammaaday risaaladda ama statementkaan doonaya inaan halkan aqoon-yahanka uga faa'iidaysto munaasabadan qaaligaana uga faa'iidaysto waxay tahay maanta mushkilad bayna haysataa mushkiladdana innagaa isugu wacan waayo odhan kari mayno dowladda hoose xildhibaanada dowladda hoose jooga maynu dooran maanta odhan kari mayno reer burcaa doortay weliba inta wax doorataa waxaan leeyahay waa maatadii dhalinyarada dadka weyn waxma doontaan
statement halka ka gaarsiinaya waxa weeyaan maanta aynu raadino burcadan dhaanta dowladda hoose dhaanta laakiin yaynu isku mashquulin dowladda hoose maxay wax u qaban weyday dowladda hoose maanta dhaanta aynu raadino inagu aynu dooranno aqoonyahanka inaan iska soo dhex saarno aynu dooranno dad xeerkan maanta taagan fahmaya aynu dooranno aynu xildhibaan ka dhigano assalaamu calaykum qurxiyey ama stageka inoo qurxiyey sunshine sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa aqoonyahanka halkan fadhiya waqtigoodii cilmigoodii aqoontoodii intaba ina la wadaagay khadar waxaan ka jawaabayaa